magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa gacanta Somaliland gabi ahaanba ka baxday xalay. Dadka deegaanka oo aad u hubeysan ayaa dagaal buuxa la galay ciidamada Somaliland ee ku sugnay halkaas. Ciidanka militariga Somaliland ayaa la sheegay inay gabi ahaanba ifaarujiyeen magaalada. Calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ka babanayo deegaanada amba magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Bixi ayaa horay ugu hanjabay inuu awood buuxa u adeegsan doono dadka deegaanadaas, taasoo uu sheegay inay farash shisheeye ay ku jiraan Somaliland iyo midnimadeedana ay ku yihiin khatar, sidoo hadalka ka dhigay madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi. Dad aad isu abaabulay ayaa la sheegay inay dagaal ay ku galeen ciidamada iyo askarta Somaliland qasab ku noqotay inay gabi ahaanba isaga baxaan deegaanada SSC. magaalada meel u jirta 4 kiiloomitir ay degan yihiin xerooyin militari oo aad u waaweyn ay ku leeyihiin sida lagu soo waramayo ciidanka Somaliland oo halkaas degan sida hadda la sheegayo, iyadoo sheegayaan in taliye u hadlay ciidanka Somaliland ayaa sheegay inay uga baxeen magaalada Laascaanood. taliyaha guud ee ciidamada Somaliland amar uu bixiyay oo ahayd inay dib uga baxaan magaaladaas si shacabka deegaanadaas ee banaanbaxyada iyo carada ballaaran u qaba Somaliland ay u degaan, balse uu ka digay taliyahaas oo ka hadlayay afafka hore magaalada Laascaanood oo sheegay inay Somaliland ka gabangaabsan doonin difaacista midnimada iyo madaxbanaanida guud ee wadanka, sida uu hadalka u dhigay. waxaa la arkay dad aad u badan oo ku damaashaadaya magaalada Laascaanood kadib markii halkaas ay isaga carareen ciidanka Somaliland oo hayay tan iyo 2007 deegaanadaas ka arriminayay. magaalada Laascaanood ayaa waxaa laga taagay meelaha waaweyn iyo fooqaqa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Laascaanood ayaa u muuqata inay guddiba ka jidbad keentay amba laga saaro deegaanadaas ciidanka Somaliland, halka waxgaradka ayaa uqaasha garaadada ay maalmihii ugu dambeeyay ay ugu baaqayeen Somaliland inay ciidamadeedu kala baxdo deegaanadooda sidii hadalka u dhigeen, balse madaxweyne Bixi ayaa garafka ku dhiftay sheegana ciidanka militariga inay u joogaan amniga iyo nabad ilaalinta dadka iyo nafta iyo dhaqaalaha dadka reer Somaliland, sida uu hadalka u dhigay. Somaliland ayaa u muuqata mid qorad dable oo lagu dhex tuuray kadib markii dadka deegaanka ay u muuqdeen kuwa doonaya midnimada iyo madaxbanaanidii dhulkii Somali Republica la dhihi jiray, halka Somaliland ay ku atabaado mar waliba ay sheegto in ay iyadu tahay dowlad madax bannaan. beelaha deegaanka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ayaa marar badan sheegay inay iyagu aad u daneynayaan midnimada iyo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, hoosna tagaan filla Soomaaliya laga xukumo, balse waxaa u muuqata in hadda Somaliland looga tugtugroonaday. magaalada Laascaanood ay ciidamo careysan oo aad u hubeysan ay xalay ay gudaha u galeen, taasoo qasab ka dhigtay inay ciidanka Somaliland ay isaga baxaan. taliye sare u hadlay ciidamada Somaliland ayaa sheegay in ay isaga baxeen magaaladaas amar uu bixiyay taliyaha militariga Somaliland Nuux Taani, oo uu sheegay inaysan dagaal ku gelin magaalada sababta nafaha iyo dhaqaalaha dadka reer Somaliland dartood, balse uu ka digay inay dib ugu soo naga karaan kana buri karaan. waxa uu sheegay maleeshiyaad qaadoolayaal ah oo ku sheegay inay qaska wadaan magaalada Laascaanood, sida uu hadalka u dhigay taliyahaas u hadlay ciidanka militariga ee Somaliland ayaa muddadii ugu dambeysay 30 sano ahayd ku laanoonaysa nabad, taasoo ahayd inay deegaanadeedu aysan ka dhicin waxa koonfurta Soomaaliya ka dhaca. koonfurta Soomaaliya ayaa ka dhaci jiray weerar qabiilaysan amba iyo kuwa argagixiso oo dad iyo kumanaan kun oo Soomaaliya ay ku naf waayeen. Somaliland ayaa ahayd meel nabdoon, xasiloon, doorashooyinka dadka ay si dimuqraadi codka u tuurtaan, halka ay Soomaaliya amba magaalada Muqdisho oo xarun oo ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aysan wax doorasho qof iyo cod aysan ka dhicin, sababta loo aaneynaa in ay tahay kooxaha argagixisada ee ururka Al-Shabaab ay
sambaraha dhigteen koonfurta qaraxyo iyo dilal iyo madax jabisna ay ka wadeen sanadihii ugu dambeeyey. 10 sano ayaa ururkaas koonfurta Soomaaliya ay dhibaato ballaaran ku hayeen, balse Somaliland ayaa ahayd meel nabdoon oo aysan wax arbushid ama argagixin aysan ka dhicin sida ay wararku ama dadku og yihiin. Somaliland ayaa dhumisay magaalada Laascaanood, lama oga inay weerar rogaal celis ay ku soo qaadi doonto, halkaas oo dadka deegaanku ay banaanbaxyo maalmihii ugu dambeeyay amba 10 maalmood. Laascaanood ay ahayd meel haysata warbaahinta Soomaaliya qaybaha ugu horeysa laga soo waramay magaaladaas oo dagaal iyo banaanbax dad gaaraya 25 ruuxna ay ku naf waayeen, halka boqolaal kale la sheegay in isbitaalada ay ku jiraan ay dhaawacyo ka soo gaareen banaanbaxyada iyo rasaasta nool ee ciidamada Somaliland ay ku gamayaan dadka shacabka ee deegaanadaas degan. Madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya kuwa xilal hore uga soo qabtay ayaa mar badan ku baaqay in la dejiyo xasaradaha deegaanadaas. Laascaanood, gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Aadan Madoobe ayaa u magacaabay guddi arrimaha ka dhacay Laascaanood warbixin ka soo jeediya, taasoo intii badneed ay noqdeen kuwa isgabihaanba iska casilay arrimahaas, taasoo ay sheegeen inay ka cudur daaranayaan taas aysan qaba karin. Laascaanood ayaa ahayd meel ay indhaha Soomaalida ama warbaahinta ay ku soo jeedeen maalmihii ugu dambeeyay. Laascaanood waxay ahayd meel warbaahinta Soomaalida qaybaha hore uga jirta, taasoo ay sabab uga ahayd banaanbaxyada iyo dilalka meelahaas. Kan culimo aad u waaweyn ayaa lagu dilay inta howlgalku ay wadaan ciidamada Somaliland. Dadka deegaanka ayaa ku eedeeyay Somaliland wax ay hore u diiday inay ku qasbayaan. Somaliland ayaa hore u diiday amba beesha dhexe dowladii kacaanka ee militariga Soomaaliya ay sheegaan inay xasuuq ballaaran ay u geysatay deegaanada Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa ay la dhacday diyaarado waxna aysan u reeban dadka deegaanadaas, taasoo qasab ku noqotay sida ay sheegaan inay ka goostaan jamhuuriyaddii la dhihi jiray Somali Republica ee ahayd magaalada Muqdisho looga arrimi jiray arrimaheeda. Dadka heer Sool iyo Sanaag ayaa ku eedeeyay waxay hore u dideen inaysan marnaba aqbali doonin waxa ay ku sifeeyeen gumaysi ay ku hayaan dadkooda. Somaliland ayaa sheegtay inay dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Caan ay madax sare ay ku leeyihiin xukunka Somaliland, taasoo gudoomiyaal iyo wasiiro ay ku leeyihiin iyo gudoomiyaha baarlamaanka, balse dadkaas weli uma cuntami karto sida ay sheegayaan inay kasii mid ahaadaan Somaliland. daawadayaal intaas ayaan kusoo eegaynaa. Amaano Allah.